kulan wacan halkan waa Runmaal Media saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. Safarka Benjamin Netanyahu ku tagayo dalka Mareykanka miyay ka dhigan tahay qorshe cusub oo Mareykanku maleegayo in uu wax kaga bedelo dagaalkiisa uu kula jiro Iran xilli 24 saac la soo dhaafay Mareykanku uu hakiyay duqeymihii uu ka fulinayay gudaha Iran. Trump maalintaas wuxuu ku tilmaamay inuu fursad siinayo wada hadallada lagu soo afjari karo xiisadda labada dhinac. Falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin wax ka duwan hadalka Trump. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin gacanka Bab al-Mandab oo hadda la leeyahay waxa maraakiibta soo food saaray cabsi cusub oo la xiriirta xiisadda cusub ee u dhaxaysa Xuutiyiinta iyo waliba Sacuudi Carabiya oo saacadii la soo dhaafay duqeymo isweydaarsaday. Qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan haddii ay tahay markii ugu horeysay aan ka soo horbaxno halkan waa Runmaal Media waxaan ku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka iyo falanqeynta dhacdooyinka military iyo kuwa siyaasadeed. nagu soo biiro subscribe dheh like-na saar muuqaalkana la wadaag asxaabtaada aad baad u mahadsantahay. aynu ku bilownay 24 saac la soo dhaafay Mareykanka ayaa joojiyay duqeymihii uu ka geysanayay gudaha Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arintaasi ku sheegay in uu doonayo inuu fursad siiyo wada hadallada lagu soo afjari karo xiisadda dagaal ee labada dhinac u dhaxaysa. Laakiin falanqeeyaasha ayaa aaminsan in Mareykanka sababta dhabta ee duqeymahaas u joojiyay ay tahay laba qodob oo waaweyn. Qodobka koowaad ayaa lagu sheegay in ay tahay in Mareykanku doonayo inuu dib u eegis ku sameeyo istiraatiijiyadiisa dagaalka uu kula jiro Iran. warbixino ay daabaceen CNN iyo warbaahinno kale ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance iyo gudoomiyaha taliyayaasha ciidamada Mareykanka ay Trump ugu digeen khatarta ka dhalan karta haddii dagaalku sii dheeraado. Sida wararkaasi tilmaamayaan mid ka mid ah walaacyada ugu waaweyn waa hoos u dhac ku yimid gantaalada iyo rasaasta casriga ee Mareykanka, gaar ahaan gantaalada difaaca hawada sida Patriot iyo THAAD kuwaasi oo waqti dheer qaata si dib loogu soo saaro. arrintan ayaa lagu tilmaamay inay tahay sabab muhiim ah oo ku riixaysa Mareykanka in uu yareeyo ama hakiyo weerarada uu ku hayo Iran. Saraakiisha militariga ayaana ka walaacsan in haddii kaydka hubku Mareykanku sii yaraado ay adkaan karto in Mareykanku si isku mar ah uga jawaabo khataro kale oo waaweyn sida Shiinaha, Ruushka ama Kuuriyada Waqooyi. sidaas darteed go'aanka lagu joojinayo ama lagu hakinayo dagaalka ma aha oo kaliya arrin ku saabsan Iran, balse wuxuu la xiriiraa arrin awoodda istiraatiijiga ee Mareykanka iyo diyaar garowga colaadaha mustaqbalka. warbixinaha jira waxay sheegayaan in tani ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu culus ee cadaadiska lagu saarayo aqalka cad si loo raadiyo waddo diblomaasiyadeed halkii dagaalku la sii ballaarin lahaa. Donald Trump iyo aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku marmarsiinayay in sababta dhabta ee ka dambaysa in 24 saac la soo dhaafay ay hakiyaan duqeymaha ay ka geysanayeen magaalooyinka dhaca koonfurta Iran ay tahay in fursad la siiyo wada hadallada. Axios ayaa baahiyay in shalay ay dalka Iran gaar ahaan magaalada Tehran ay gaareen wufuud ka socotay saldanada Oman kuwaasi oo Tehran u soo bandhigay qodobo ama heshiis cusub oo lagu joojinayo dagaalka laguna furayo marinbiyoodka Hormuz. 24 saac la soo dhaafay labada dhinac ma aysan jirin wax weerar ah oo isweydaarsadeen, iyadoo taasi ay jirto haddana waxa weli xiran marinbiyoodka Hormuz. 6 maraakiib ganacsi oo shidaal siday oo rabay inay ka gudbaan marinkaas ayaa la sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay rideen rasaas fariin ah isla markaana ay u sheegeen in aysan ka gudbi karin marinkaas. dhinaca kale ciidamada Mareykanka ee ku sugan aagga marinbiyoodka Hormuz ayaa sheegay inay joojiyeen maraakiib ka soo shiraacan lahayd dekedaha Iran kuwaasi oo aadi lahaa qaybaha kala duwan ee caalamka. iyadoo ay haatan socdaan wada hadallada isla markaana ay joogsadeen weeraradii la isweydaarsanayay, taasi kama dhigin in marinbiyoodka Hormuz si caadi ah la isugu mushaaxi karo. labada dhinacna weli waxa ay muujinayaan ku adkeysigooda ku aadan in marinkaasi ay si dhab ah midkood gacanta ugu galo. waxay warar ka soo kordha barnaamijyadeena soo aadan ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa. haddii aynu intaa kaga nimaano qaboobidda xiisadda bariga dhexe iyo weliba talaabada Trump ee ku aadan in uu jiro wada hadal u dhaxeeya labada dhinac, waxaa soo baxaya isweydiino cusub oo la xiriira weeraradii ugu dambeeyay ee ay Iran ku qaaday saldhigyada Mareykanka ee gobolka kuwaasi oo Mareykanku gaarsiiyay khasaare baaxad leh. Mareykanka intii uu sheegtay khasaaraha ka soo gaaray waxa ka badan intii uusan sheegin, waa sida ay aaminsan yihiin khubarada falanqeysa xaaladda bariga dhexe. 13 maalmood ee ay socdeen weerarada ay dhinacyadu isdhaafsanayeen, Iran waxa u suura gashay in ay burburiso dhowr saldhig oo Mareykanku ku leeyahay qaybo ka mid ah dalalka Carbeed. Mareykanka ayaa shaaciyay in weeraradaasi ay kaga geeriyoodeen ilaa 18 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe. dagaalkii ugu dambeeyay ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran wuxuu muujiyay in Tehran ay weli haysato awood gantaaladeeda culus
inkastoo weeraro badan lagu qaaday xarumaheeda militari. weerar lagu qaaday saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe ayaa sababay khasaare iyo walaac weyn, taasi oo keentay in saraakiisha ugu sareysa ee Mareykanka ay dib u eegaan istiraatiijiyadda dagaalka iyo isticmaalka kaydka hubka. warbixino ay baahiyeen Al Jazeera, Wall Street Journal iyo warbixino kale ayaa sheegaya in Iiraan ay si weyn u adeegsatay gantaalada balaastiga ee loo yaqaan Khaybar Shekan, kuwaasi oo leh madax gantaal oo dhaqdhaqaaqi kara, xawaaro sare iyo saxnaan ka dhigaysa kuwa aad uga adag nidaamyada difaaca hawada ee Mareykanka sida Patriot iyo THAAD inay soo ridaan. gantaaladan ayaa lagu weeraray saldhigyo Mareykanka oo ku yaala Jordan iyo dalal kale oo gobolka ah, waxaana la sheegay in qaar ka mid ah ay gaareen bartilmaameedyadooda inkastoo la adeegsaday difaac adag. Al Jazeera waxay sheegtay in weeraradaasi ay muujiyeen inay Iiraan weli awood u leedahay inay gaarsiiso dhaawacyo culus, iyagoo isugu daraya gantaalo balaastig ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn si ay u daaliyaan difaacyada Mareykanka. Falanqeeyayaashu waxay sheegeen in Iiraan ay ka faa'iidaystay khibradaha dagaalkii hore iyo farsamooyin soo kordhay saxnaanta weerarada. sidoo kale CNN, Reuters iyo warbaahinno kale ayaa sheegay in maamulka Trump uu hakiyay weerarada uu ku hayay Iiraan kadib digniino ka yimid saraakiisha militariga oo ku saabsan yaraanta gantaalada difaaca hawada, khatarta dagaal daba dheeraada. sida ay baahiyeen CNN, Reuters iyo warbixino kale ayaa sheegaya in maamulka Trump uu hakiyay weerarada uu ku hayay Iiraan kadib digniino ka yimid saraakiisha militariga ee ku saabsan yaraanta gantaalada difaaca hawada iyo khatarta dagaal daba dheeraada. si kastaba haatee, warbixino waaweyn ma sheegin in Mareykanku si rasmi ah u joojiyay dagaalka sababo kaliya la xiriira gantaalada. waxay tilmaameen in go'aanka uu ka dhashay isku dar cadaadis militari, yaraanta kaydka hubka, khataraha ciidamada Mareykanka iyo dadaalada diblomaasiyad. marka la eego 24kii saac ee lasoo dhaafay ee uu Mareykanku hakad ka geliyay weeraradii uu ku qaadayay gudaha Iiraan, waxaa soo baxaya warbixino cusub oo sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo in uu dib uga fiirsado istiraatiijiyadda dagaalka uu kula jiro Iiraan. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa la filayaa in maanta uu gaaro dalka Mareykanka, halkaasi uu kulamo kula yeelanayo madaxda ugu sareysa dalkaas. wargeyska New York Post oo ku dhow aqalka cad ayaa baahiyay warbixin uu sheegay Mareykanku inuu ku dhow yahay inuu go'aansado howlgalka ugu khatarta badan oo ciidan Mareykan ah ay fuliyaan oo ka dhici kara gudaha Iiraan. duqeymaha iyo weerarada cirka ee Mareykanku ka fuliyay gudaha Iiraan ayaa noqday kuwo aan isbedel dhalin, wuxuuna dagaalku ku dhowaanayaa Mareykanku inuu dhaxda u galo dagaal dheer. si taas looga baaqsado, hadda qolalka militariga Mareykanka waxaa ka soconaya daraasad ku aadan isku day uu Mareykanku ku galayo howlgal ay fuliyaan ciidamada gaarka ah, kuwaasi oo gudaha u galaya xarumaha nukliyeerka Iiraan si ay ula wareegaan uraniumka la hodmiyay. warbixinta wargeyska waxaa lagu sheegay haddii la fuliyo howlgal dhul ah, kumanaan askari ayaa gudaha u gali doona xarumaha nukliyeerka, kuwaasi oo la sheegay inay la tacaalayaan dabinada iyo weliba qorshayaasha amni ee halkaas lagu diyaariyey, waxayna adeegsanayaan kooxo dhismo iyo injineero oo qayb ka noqon kara howlgalka. intaa waxaa dheer, waxay dhisi doonaan goobo difaac oo ballaaran oo lagu hareereeyo xarumaha. koox yar oo gaar ah ayaa markaasi soo saari doonta nukliyeerka, iyagoo fulinaya howlgal aad u khatar badan. ka hor intaasna waxaa lama huraan noqon doona in dib loo furo meelihii laga geli lahaa xarumaha, kuwaasi oo xirmay kadib duqeymihii uu Mareykanku hore u fuliyey. marka la eego howlgal dhulka ah oo Mareykanku ku galo gudaha Iiraan ma aha mid sahlan, waxaase warbaahintu aad u falanqeynaysaa safarka Benjamin Netanyahu iyo waxa isku soo aadiyay hakinta Mareykanka ee ku aadan duqeymihii uu ku hayay iyo Iiraan iyo wada hadallada aan miro dhalka ahayn ee uu Mareykanku marmarsiyado markastoo uu doonayo inuu qorshayaal cusub ama wax ka bedelo istiraatiijiyadiisa dagaal ee ka dhanka ah Iiraan. saaxiibayaal, qaybtan intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. haddii aad naga cusub tahay, nagu soo biiro, subscribe haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsan tahay. muuqaalka like saar, lana sii wadaag asxaabtaada, aad baad u mahadsan tahay.